asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal kusoo dhawaada kanaalka noodaan ood kaga barateen cashar kubaxa afka soomaaliga iyo barnaamijya la xiriira taariikho iyo weliba dhiirigelin. sidoo kale waxaan halkan kusoo bandhignaa halxiraaliyaal. maanta casharka waxaan ku qaadan doonaa haddii la raalli ka noqdo 7 janaal oo aad ka baran karto ingiliishka. dad baan isoo weydiiyey sideen baa u bartaa ingiliishka anigoon iskool aadin, anigoo aan jaamacad tegin. marka hadda wax walba waa fudud yihiin, wax walba waa online, waxaa ka xiga oo keliya inaad internet haysato oo keliya teleefankaada gacanta. marka dad baan isoo weydiiyey ma noo sheegi kartaa, mana la wadaagi kartaa kanaalada websiteyada. hadda ka hor casharan kaga soo hadla websiteyada, laakiin weli kama hadlin YouTube journalistka. marka insha Allah maanta waxaan ka hadli doonaa YouTube journalistka aad ka baran karto Englishka adigoo gurigaaga jooga teleefankaada gacanta isticmaalaya. marka 7 janaal ayaan soo bandhigi doonaa haddii la raalli ka noqdo. sidoo kale linkiyada janaaladan waxaad ka helaysaa qaybta description-ka. janaalka koowaad waa English with Lucy. kanaalkaas u jeediin muuqaalo badan la soo dhigay. hadda qaybta videoga dan tagno soo jeediin koleytaba asbuuci 2 muuqaal soo gelida. gabadhan waa British. marka waxaa ku jira malaayiin. marka meeshan ha ku wareerin oo muuqaal inta u raadi lahayd, muuqaal beginner inta raadi lahayd ha ku wareerin. waxaad aadaa qaybta ay ku qoran tahay playlists, halkaas mar walba aad. marka halkan tagto waxaa ku soo baxaysa u jeediin English business, vocabulary-ga, sidoo kale English diluted, English speaking skills-ka, sidoo kale just for fun, sidoo kale listening and practice-ki, grammar-ki, pronunciation-ki, children, sidoo kale business English mar labaad ku soo celisay muuqaalo kale ka sameeyay, vlogs oo kaleeto oo aad runtii practical badan ka helaysid, interview-ga, wareysiyaasha kaleeto. marka runtii halkaan wax walba ka helaysaa. dad hadal rabto waa hadalka dooranaysaa, dad rabto inaad vocabulary barato baranaysaa, grammar-ka dooran kartaa, sidoo kale children caruurtada waa bari kartaa. mid kale oo sheegaya ama dad hadii daawanayaan waalidiina ama dad caruur la daawanayaan muuqaalkan, caruurta markay jiraan 2 sano ilaa ka weyn, markay 2 sano gaaraan, haddii aad caruurtaada teleefankaada gacanta aad u dhiibto oo aad YouTube-ka muuqaaladan uga daato, sida muuqaalada kartoonka ah, muuqaaladan Englishka ku saabsan dad uga daarto, waxaan hubaa caruurtaada in 1 sano ku baranayaan English. waa tijaabo la sameeyey, waana sax, waana ku baran karaa insha Allah hadii la yiraahdo. marka caruurtaada intay yaryar yihiin luqadda bar, intay hadhow iskuulka ka wareegi lahaayeen oo luqadan baranayaan ku adkaa lahayd. hadda intuu 2 jirka yahay teleefanka gacanta si YouTube-ka u daar ama muuqaalo kale u daar, waa baranaya insha Allah. aan u gudubno channelka labaad waxaa la yiraahdaa YouCan. kanaalkan runtii waa kanaal anigu aad u jecelahay marka laga soo tago kanaalada kale, waayo muuqaalada wuxuu ku soo bandhigaa 4 waxyaabood ku soo bandhigaa. wuxuu leeyahay marka koowaad oo speaking ah, marka labaad oo ah exercise-ka ah, marka saddexaad oo ah grammar-ka ereyada ku cusub, marka afaraad oo ah subtitles, marka shanaad oo ah action-kii la sameynaya. intaba waa ku kooban yihiin. marka meeshan ha ku wareerin, hore kugu sheegay meeshan casharo badan ku soo bandhigaa, German ha ahaato, Spanish ha ahaato, Carabi ha ahaato, boqolaal luqadood soo channelkan soo geliya. marka waxaad aadaysaa playlist. marka playlist-ga aado halkan aad ka helaysaa. waa kana marka luqad kale ku qoranta laakiin waa English-kii. hadaan doorno English buu noo daarayaa. halkaas u jeedin qaybtan mid ku soo baxay casharadii ilaa 9 iyo waxa waan fiilaa ilaa 9 dhowr cashar waaye. marka halkaas ku soo baxaya. marka horaan kugu sheegay meeshan ku wareerina ku yiri waxaad aadaa u kaliya playlist-ga waxba ka helaysaa. marka kanaalkan luqado badan ka baran kartaa. English kaliya maahan, Spanish-ka, Carabiga, Talyaaniga, luqado fara badan ayaa lagu soo bandhigaa. marka ayagana waa ka faa'iideysan kartaa, English-kana waa ka baran kartaa. sidoo kale waxa u gudbaynaa BBC Learning English oo ayadan runtii useful ah. sidoo kale BBC-dan waxay faa'iido u leedahay tahay kartoon ay leedahay, subtitles-ka sidoo kale muuqaaladu leeyihiin, sidoo kale area lagu fasirayaa oo lagu kala dhigaya. maan suuqas ma hadal kaliya ma aha, practice-gi, erayadii, vocabulary-gi, grammar-ki, subtitles-ka maliya. marka everything waa diyaar. soo marka hore kugu sheegay meeshan ha ku wareerin, inkastoo English kaliya tahay, laakiin waxaad aadaa playlist-ga aad. marka playlist-ga halkan aado sida u jeedin English speakers waa aad English ku hadlayso, Englishka qof walba ku hadlo, sidoo kale macallin telefoon ku hadlaya iyo idioms-ka, sidoo kale English. okay, halka sidoo kale waxa ku jira English aan ku hadalno, sidoo kale waxa ku jira learn English, erayada iyo phrases kaleeto. halka waxa ku jira English in a minute, 1 daqiiqo oo English ah, waa improve oo inaad cadeynayso ama improve ku sameeyo lagu leeyahay Englishkaada waa 1 daqiiqo. sidoo kale 6 minutes, 6 daqiiqo ayuu leeyahay oo vocabulary-ga iyo dhegeysi ah. pronunciation halkan ku jiraan, sidoo kale sounds English, codadka sida loogu dhawaaqo halkan ku jiraan, sidoo kale workshops ku jira. marka waa halkan aad ka helaysaa muuqaal walba u baahan tahay, hadal u baahan tahay, hadaa practice u baahan tahay, hadaa grammar u baahan tahay, hadaa vocabulary u baahan tahay, wax walba ku diyaarsan yihiin. okay, aanu soo gudubno triple M ama 3M aad leedahay, kadib waxaad leedahay English. waa 3M English. marka kanaalkan waa kanaal weyn runtii
gabadhan baa iskale marka iyadana casharay soo bandhigtaa marka soo jeedin mistakes you keep making okay we can't understand each or every halkan ayay kusoo bandhigtaa cashar English channelkan runtii waxaan dhihi karaa 90% waa useful ama aad ayuu anfacaya dadka baranaya Englishka sidoo kale dadka Englishka yaqaan laakiin aan ku hadli karin oo ay dhibayso grammarka ama sida loogu dhawaaqo sidoo kale channelkan uu caawinaya marka channelkan faa'iidooyin badan ku jira marka waxaan filayaa ka faa'iideyso insha Allah hadii la yiraahdo wasu gudbina hadii la yiraahdo waxaan gudbina channelka la yiraahdo Learn English with Emma idana waa gabar kaleeto oo Englishka soo gelisay luqada English soo gelisay soo jeedino ka sax playlist-ga luqada baan soo gelisay soo jeedin English shaqada Englishka shaqada loo isticmaalo Englishka qoritaanka sidoo kale soo jeedin halkan waa akhrinto kaleeto ayadana waa ka helaysaa muuqaalo fara badan soo dhigtaa waa useful oo ku caawin doona insha Allah laakiin waa hadda si rasmi u baranaysid oo idaacad ka tahay oo dadaal ku bixisid runtii waxaa jira dadka badana waxay sameeyaan markay daawadaan tusaalahan 20 muuqaal 10 daawadaan kadib waa ka caajisaan waxay dhahaan practical ma sameeyno qof practical la sameeyo ma jiro qofan la sheekeysano Englishan kula hadalno glass ma ahan meeshii waa kaliya waaysan ku bar karaa waxyaabaha tax ka dhacaya marka waa qaldan tahay daa wax ka dhacayso waayo marka adigu nafsadaada controlsho aad marka nafsadaada controlsho aad go'aan ku qaadato inaad luqada baratid waad baranaysaa insha Allah waqti samay ku celceli marka insha Allah kuleetaba waa intaas waa dhankaada iyo dadaalka sameeydo marka waxaan filayaa qasho gudbeyna insha Allah marka laba kan aan dhiman kanalka waxa waaye waxa la yiraahdaa kanalkaasna waa favorite ama waxa waaye kanalada aan u jecelahay waaye waa kanal runtii aad iyo aad muhiim ah waliba carruurta u fiican waa kartoon waa kanal asii dhan wada kartoona marka 700 muuqaal oo soo galiyay 1 milyan subscribers waa haystaa koleeto dad badan ka faa'iideystay marka soo jeedin waa control waxa waaye waa kartoon inta badan kartoon ku soo gudbiya hadaan playlist-ga aadno soo jeedin alphabetiga dialogueska sidoo kale vocabulary-ga sidoo kale listen and repeat-ki waxyaabo badan ku jira marka waxa ugu duwan kuwa kale subtitles-kii leeyahay kartoonkii leeyahay runtii action-kiina wala sameynaya wixii dadka Englishka aqoon waxaad fahmaysaa qofka meesha aadayo diiq qofkan qaado oo soo qaadayo wuxuu sheegayaa qaadada oo soo qaadayo iyo qaabkii u qoran tahay si loogu dhawaaqo action-kii wax walba isla socda marka waa diyaarsanaysan kanalkan kulli waxaan filayaa buuqa doonto aad fiiri doonto kanalkan ugu dambeeya waxa la yiraahdaa Learn English kanalkan soo jeedin asna waa runtii waa fun dad badan ka faa'iideystay waana useful aad ay runtii dadka anfacaya dadka baranaya Englishka waxyaabo badan ka baran karaan sida vocabulary kaleeto grammar kaleeto sida codka loo saxo kaleeto hadalka kaleeto speakingka sidoo kale writing kaleeto waxyaabo badan soo gudbiya runtii aad ma uga faa'iideystay laftigaygu kanalkan inta badanna waa fun ama waxyaabo wuxuu ku sameynayaa experiment ama dhacdooyin ah marka waxaan filayaa ka qoslinaya Englishkana ku baranaysa marka runtii waa kanal aad anfacaya dadka baranaya English marka todobaadkan kanal maanta in la wadaagayo muuqaalkan hadad ka faa'iideysatay ama aad jeceshay inaad la sii wadaago kanala ka badan ama wasiido runtii ku English laga baran karo ama luqada kale qaybta comment ula wadaag waxaan filayaa ka faa'iideystay casharkan fadlan la sii wadaaga asxaabtaada u share garay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh